Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada mar kale asxaabay kanaalkeena. Maanta muuqaalkeena waxaynu uga hadlaynaa qiso aad u xanuun badan oo ku dhacday gabar Soomaaliyeed. Kusoo biir kanaalka Ogaal Production, subscribe saar oo ka mid noqo asxaabta ku xiran kanaalka. Sheekadu waa mid xasaasi ah, waxay ka bilaabatay waddo dhexdeeda. Markii aan si kadis ah isku baranin nin da'diisu u dhaxayso qiyaas ahaan 28 ilaa 35 sano oo magaciisu iigu sheegay Cabdixakiin. Wuxuuna sidoo kale ii sheegay inuu dhakhtar yahay. Wuxuu igula muuqday nin aqyaar ah sida aan muuqaalkiisa ka gartay. Lambarkayga ayuu iga qaatay, kadibna si wanaagsan ayuu ii soo xiriirin jiray. Waa hubaal inaan anigu guurdoon ahaa, balse wixii guur aan ahayn ma jeclayn. Dhowr haween ayuu gurigayga iigu yimid, waxaana u martiqaadi jiray si wanaagsan. Inkastoo muuqaalkiisu ahaa mid aqyaareed, haddana hadalkiisa iyo gacanta oo ka soo horeysa ayaan ahayn kuwa isle. Wuxuuna dhowr jeer isku dayay oo iga codsaday inuu ishumiyo ama jirkeyga taabto, taasna uma ogolaan jirin. Guurka ka hor waxaan u sheegay in guurka hortiisa arrimaha yimaada aanan ogolayn. Wuxuu ii ballan qaaday inuu i guursan doono oo nolosheeda uu wax ka bedeli doono, maadaama ay nolosheeda iska xumeed. Waxaan niyadda iska dhahay, haddaad heshay ninkii noloshaada wax ka bedeli lahaa. Siduu xiriirkeena u dhisnaa, hamigeyguna u raacay ninkaasi, ayaa maalin wuxuu iga codsaday inaan u tago gurigiisa. Si shuruud la'aan ah ayaan uga aqbalay, sababtoo ah xumaan kuma aanan baran, mana isdhehaynin wax ay niyadaadu diidan tahay ayuu samaynayaa. Horey ayuu in badan i dhihi jiray hadallo aan malaynayay kaftan oo dareenka qofka kicinaya, waxayna niyadeyda aqbali weysay inuu si dhab ah u samayn doono. Hase yeeshee, sidaan filayay iyo siday noqotay waa mid aan loo noqon doonin. Markii la gaaray xilliga balanta ayaa si dhaqso ah uga soo baxay gurigii aan degnaa, waxaana ka fikirayay sidaan uga hagaagi lahaa gurigiisa, halka uu iigu tilmaamay. Markii la gaaray xilligii balanta ayaan si dhaqso ah uga soo baxay gurigii aan degnaa, waxaana ka fikirayay sidaan ugu hagaagi lahaa gurigiisa, halka uu iigu tilmaamay. Gaari ayaan soo raacay. 15 daqiiqo kadib waxaan soo gaaray halka ay tilmaamtu ahayd. Taleefan ayaan ka wacay, waxaana u sheegay meesha aan joogo. Wax yar markii aan taagnaa, qiyaastii 5 daqiiqo kadib ayuu ii yimid. Waxaana isu raacnay hooyigiisa oo aan islahaa martiqaad wacan buu ku sameeyay. Waxaan imaanay guri si weyn loo xardhay oo quruxdiisu aad isleedahay ha ka dhex bixin. Markii aan albaabka guriga soo dhaafay, ayuu i dhahay, soo dhawow qalanjo, guriga waa gurigaaga, waxaana tahay marwada guriga. Iyo hadallo kale oo macaan ayuu igu soo dhaweeyay. Aniguna mahadsanid ayaan si dabacsan ku dhahay. Qol fadhiha oo si weyn loo sharaxay ayuu i keenay, wuxuuna shiday TV-ga oo ku tuuray cajal heeso ah. Durbadiiba waxay ku bilaabatay hees aan in badan jecelahay oo aan miraheeda ka fahmay in gabar lagu ammaanayo, fanaankana maba xasuusto. Wax yar kadib, cabitaan qabow iyo cunno fudud ayaa la isoo hoos dhigay. Ninkiina kama daalayo hadallada jilicsan ee isku dayo inuu igu soo xerogeliyo. Aniguna waan baxshoonayay oo hadalka lama sii wadi karin. Hubaashii waan aaminay, ninkaasi ismana lahayn wuu kugu xadgudbi doonaa. Cabitaankii la ii keenay ayaan marka baday, mise waa cambe oo aan aad u jecelahay. Waxaan u cabay sida qof baqaya in laga dhameysto. 2 daqiiqo kadib waxaan iska dareemay caajis iyo hurdo, mise waa ila tagtay hurdad. Ma hubo inaan suuxsanaa, balse waxaan ku qiyaasaa 40 daqiiqo. Waxaana soo toosay anigoo jiifo qolkii jiifka oo wata dharkii hurdada. Katabaanka waxaa iiga muuqday dharkaygii. Aad baan u naxay. Waxaan isdhahay, waan isdayay, waxaan cajarahayga ka dareemay qoyaan. Aad baan u sii naxay, iyo gudaha xubinteeda taranka oo aan wax ka dareemay. Anigoo naxsan ayaa waxaa qolkii soo galay ninkii oo isna shukumaan hoosta ugu xiran yahay. Waa iga dhaadhici waayeen waxaa dhacay. Inkastoo ay xaqiiqo tahay, haddana waan aamini waayay. Isagoo dhoola cadaynayo ayuu igu yiri, gacalso aad baad u macaan tahay, qadada cashada waa diyaar ee is soo diyaari. Intuu igu yiri ayuu iga laabtay. Indhahayga waxaaba markii ka soo daatay ilin, qalbiga ayaan ka ooyay. Dharkayga ayaan takabaanka ka soo dejistay. Anigoo u jawaabin ayaan galay qolkii fadhiga oo ka soo horjeeda qolka aan ka soo baxay ee jiifka. Musqusha ayaan galay, wejiga ayaan iska soo dhaqay, waxaana si degdeg ah iskugu dayay inaan guriga uga baxo. Mise waa kan oo ilaah macaanay ila cuntee. Intaadan bixin anigu madaxa ayaa i kacsanaa. hadalkana dhunteedii wuu soo dhaafi la'yahay.
xanaaq dartii anigoon u jawaabin ayaan ka baxay gurigiisa. Durbadiiba taksi ayaan helay oo aan gurigeyga u raacay. Way jirtaa marar badan oo gurigeyga iga soo raadin jiray, aniguna waan burin jiray anigoo aflagaadeynaya. Wixii markaa ka dambeeyay lambarkeyga waan badashay. Nin dambana lama sheekaysan, waxaan niyadeyda ka dhaadhiciyay inay ragga dhan isku mid yihiin. Goolkana wuxuu dhashay markii aan miir beelay. Haddaan miir lahaan lahaa sida tan ma dhaceen. Qisadani waxay ibra qaadasho u tahay gabdhaha Soomaaliyeed. Iska taxadara.